xildhibaanadii sheegay inay xil ka qaadeen madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf guddiga ay u magacaabeen doorashada madaxweynaha oo maanta warbaahinta kula hadlay Cadaado ayaa sheegay inay dib u dhigeen jadwalka doorashada madaxweynaha galmudug. xildhibaan Xasan Cali Dhuux Calimaad oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa sheegay inay dib u dhigeen xilligii ay u asteeyeen doorashada madaxweynaha maadaama sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya ay la leeyihiin kulamo lagu xalinayo khilaafka galmudug. taariikhdu tahay 12 November 2017 waxaa iskugu yimid guddiga doorashada ee dowlad goboleedka galmudug caasimadda ku meel gaarka ee Cadaado taasoo aan uga hadlayn wax ka bedelka jadwalka doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka galmudug xafiiska gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxaan maanta nasiib u yeelanay inaan ka hadalno wax ka bedelkii jadwalka doorashooyinka iyadoo jadwalkii hore ee doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uu ahaa in doorashadu ay dhacdo 15 bisha aan ku jirno November oo ay ka harsan tahay 5 maalmood ayaa waxaa codsi ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo casuumad ugu yeeray xildhibaanada galmudug si ay uga wada hadlaan arinta siyaasadeed ee ka jirta galmudug iyo xilka qaadistii madaxweynihii hore ee galmudug. sidaas darteed waxaa laga maarmaan noqotay in dib aan u dhigno doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug inta uu ka dhamaanayo wada hadalka u socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug waxaana go'aaminay in doorashada ay dhacdo 15 bisha December 2017. faahfaahin qodobka koobaad qabashada araajida iyo diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxay dhacaysaa insha Allah tacaala taariikhdu marka ay tahay 13 November ilaa 12 December 9 subaxnimo hadduu Rabbi idmo. lamar 2 dooda musharaxiinta ee live-ka ah ee TV-yada waxay dhici doontaa hadduu Rabbi idmo 12 December 2017 9 subaxnimo. lamar 3 qodobka saddexaad khudbadda musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxay ku beegan tahay 13 December 2017 saacadu marka ay tahay 4 subaxnimo insha Allah tacaala. lambar 4 doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxay dhacaysaa 15 December 2017 9 subaxnimo si waafaqsan sharciga waafaqsan ayaynu u dhici doontaa insha Allah tacaala. Sharmarke Maxamed Maxamuud TV-ga caalamiga Home Cable magaalada Cadaado.